بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaynu kelimaad kooban iska odhan doonnaa su-aasha ilaahay subxaanahu wa tacaala leeya waqifuuhum innahum mas-uuluun فوربك لنسألنهم أجمعين ولنسألن الذين أرسل إليهم إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحينا قلت الماما يا آخره إن ددك الله طبي دونه سؤال لويدين دونه وحيا يدونك مسؤولية دي سقادين علماء المسؤولية ده وحي كنت المامان أما والتزام طوعية أما وما ألزم به كرها وحوقفك إساقو إساساري ومثلا بلمضات قشي أما مسؤوليات كادادو طلبتي وضحني ما هالنقطة شقا هالنقطة معلين ما هالنقطة وحيدون تهالنقطة وحدادو عن طوع قربتين دو قبطه وأدوgu aad xilkeeda isa saartay iyo xil alle ku saaray subxaanahu wa tacaala oo marka horeba lagaa rabay mas-uuliyaddaasi ha noqoto mid shakhsiyo fardiya adiga qof ahaantaada wixii lagaa rabay ama ha noqoto mid mutacadid oo bulshada ka dhaxaysa oo amaama allahi wa amaama annaasi mid lagu weydiin doono sida awgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam حديثك الصحيحين كويا لو حاوت المامية قف والبا إنه مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قف والبا إنه حل سارين هي عد والبنا حل كسارن لويدين دونه حلالك سوي كلوين أو قفك إمامك آيادتك وطلين إياه xil baa saaran raciyadda uu talinayo laga weydiin doono qofka guri qura maamulana xil baa saaran in gurigaa la weydiin doono haweenayda guriga joogta in la weydiin doono carruurta iyo intay mas-uul ka tahay qof walba markaa nabigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu mas-uul yahay qof walibana inta uu mas-uulka ka yahay in la weydiin doono mas-uuliyaddaasi ha ballaadhnaato oo mid caama ha noqoto sida taa madaxweynaha iyo ummadda dadka la weydiinayo ha noqoto mid ka kooban oo maamul kooban ha noqoto in ay leeg tahay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha inuu wax ku weydiin doono aadanahana alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa أيحسب الإنسان أن يترك السدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بن آدمكم موحوا ملين يا با إلهي إليه سبحانه وتعالى إن لسيدين دونا وحبعدي ويدينين موحوا ملين يانا عبث يدل دل الله أبوري ما يويان وحصلك ومسؤولية داسي قرآن كوينوت المامة وحويان ومسؤولية كسليسن أخلاق ومسؤولية أساس كيدو يهي عقلي يحرية يتكريمك إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كسيي يقدم بين رسوش الله وصدره سبحانه وتعالى سيداو قيد يا قرآن كريم بدن waxaad ku arkaysaa iyadoo ilaahay uu xusayo ulil albaab ama ulil nuha ama asxaabil uquul waxa soo dhami waxay tilmaamayaan mas'uuliyadda wasniga ay leedahay iyo asaaska ay ku salaysan tahay ugu dambeynna ilaahay wuxuu leeyahay wama kunna mu'adhibiina hatta nab'atha rasuula iyadoo ilaahay subhanahu wa ta'ala daliilul fitra abuurka wina abuuray qaabka laynoo abuuray ay tilmaamayso ilaahay iyo kelinimadiisa iyo cibaadadiisa kadibna caqli uu ina siiyey
caqligaasina uu tilmaamayo in mas-uuliyadiina saarantay kadibna uu xorriyadiina siiyey xorriyaddaasina ay tilmaamayso xorriyat alikhtiyaar doorashadeenna inaynu mas-uul ka nahay kadibna ilaahayna karaameeyey walaqad karramnaa bani aadam takriimkaasina uu tilmaamaya in mas-uuliyadiina saarantay intaa kadibna ilaahay uu rusul inoo soo diray rusushaasina ay inoo tilmaamayaan waxa laynaga rabo waxaa la yidhaha mas-uuliyaadka bini aadamku laba shay baa u asala haddii labadaa la waayo mas-uuliyaddu way ka dhacaysaa hadduuse labadaasi meesha yaalliin mas-uuliyaddaasi way saarantay ka koowaad waa aliraada waa inuu qofku doorasho leeyay oo haddii doorashadu lunto maalan haddii lagu qasbo mas-uuliyaddu way kaa dhacaysaa haddii aanad doorashaba u lahayn shayga mas-uuliyaddu way kaa dhacaysaa laakiin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala xorriyatu likhtiyaar iyo inaad wax dooran karto ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey mas-uuliyaddaasi waa ku saarantay ka labaadna waxay culammadu yidhahaan waa alqudra inaad awooddo haddaad istitaaca weydo wa aanad wax awoodin iyana way kaa dhacaysaa labaduba bay culammadu yidhaahdaan inta badan waxay ku salaysantay kow caqliga alla ku siiyey walidalik bay fuqahadu waxay yidhaahdaan idaa akhada allahu maa qad wahab asqata maa qad awjab haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu hibada inoo siiyey uu qaato yo maalan qofkaa waashay qofkaa la qasbay qofkaa xorriyaddii laga qaaday wixii ilaahay uu ku siiyey haddii la waayo mas-uuliyaddii ku saaraydna way dhacaysaa qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ilaa man ukrih wa qalbuhu mutma'innun biliimaan diikraha dhaco inaan waxba ku saarayn waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa haddii xataa gafla ay caqligaa ku dhacdo aakhira inaan lagu qabanayn wixii khata iyo nisyaan iyo wixii la mida ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا كاسي وادن دنك اللبادنا وين أودنه شيء كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلهي سبحانه وتعالى تكليفنا مصار وحين أودنا مويانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج إلهي وحين لي آدنوه بنا آدمكم الله أبو ريسه ضعيفة إذن وحكستو أولينا الضل صاري مع ضعفنا ووحينا أودنه دينتا وحان لقادي كرينكم مجرته وحكستو الشرع وينو واجب يالي ووحينا حنباري كرنه مسؤوليات كاسي كوا شخصي وقفك استقار كيس آخر اللو ويدينيا عن نفسك وعن جوارحك وعن بدنك وعن عقلك وعن روحك ومسؤوليات قار كاكو صارا إيش هذا وحي ركتال ويدين دكت هذا واحد كم غشال ويدين قعنت هذا واحد كم قادال ويدين وحكسته وأود هذا صوهوس قلي wixii aad ka samaysay aakhiro waa lagu weydiinayaa sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can cumri fiima afnaa qofka bini aadamka ah ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo ilaa iyo 4 shay la weydiiyo ama 5 shay in la weydiiyo cumrigiisii fiima afnaa war maxaad cumrigaagii ku bixisay waqtigii alla ku siiyey cilmigaagii maxaad ku samaysay in lagu weydiin doono xoolaha xaggaad ka kasbatay iyo xaggaad ku bixisay in lagu weydiin doono jidhkaagii maxaad wixii awood alla ku siiyey subxaanahu wa tacaala maxaad ku bixisay ina asamca waalbasara waalfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula إلهي وحلي مقلك يا أرجع
iyo qalbiga iyo caqliga iyo dareenkaaga dhammaanteed aakhiro waa lagu weydiinayaa sida awgeed mabaadi'da islaamku waxay inoo tilmaamaysaa qof walba intii uu alle kasba iyo garaad iyo awood iyo maal iyo caqli iyo cilmi siiyey in isaga la weydiinayo cidina kulama wadaagto intaa qof kalena loo qaban maayo oo dadka kale waxay samaynayaan adiga lagu weydiin maayo adiga xilka intii kaa saarayd baa lagu weydiinayaa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluuna amma kaanuu yacmaluun taasi waa uma tagtay baa ilaahay yidhi wixii ay shaqaysatay ee kasabkeedaa la weydiinaya idina waxaa shaqaysateen baa laydin weydiinaya walaa tus'aluuna cama kaanuu yacmaluun dadka kale waxay samaynayeen laydin weydiin maayo qul laa tus'aluuna cama ajramna walaa nus'alu cama tacmaluun walaa taziru waasiratun wisra ukhra waxaas oo qur'aana waxaynu u akhriyayna waxa weeyaan in qof waliba uu dareemo amaam allahi inuu mas-uul yahay dadkeenna waxaa caado ah inta badan xilalka sare kuwa haya ayaynu rumaysanay in mas-uuliyadii saaranta dadka kalena inaan xil saarayn bay in badan rumaysan yihin wax jirana ma aha waxa jira wuxuu yahay qof walba in xil saaran yahay intuu awoodo intuu garaadkeeda leeyahay intuu aqoonteeda leeyahay intuu hantideeda haysto intaasaa lagu weydiinayaa aakhiro qofna qofka kale xilkiisa ma qaado haddaba haddaad adigu xilkaaga ka soo baxdo aakhiro waad badbaadaysaa xilkaagaasi waa mid nafta kaa saaran waa mid bulshada kugu hareeraysan kaa saaran waa mid intaad dhashay iyo intii kuu dhaxday kaa saaran waa mid jaarka kaa saaran waa mid haddaad macallin tahay intaad wax u dhigto kaa saaran waa mid haddaad sheekh tahay ama imaam tahay intaad imaamka u tahay kaa saaran idan waa as'ila aakhira layna wada weydiinayo oo u baahan adduunka intaynu joogno inaynu xilkooda qaadno aakhiro xataa inta aynu niyada ku xambaarnaa layna weydiinaya sida awgeed baa ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa duul niyadu ka xumaatay oo xumaha dadka la jeclaaday in aakhiro loo qabsanayo ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu ilaahay wuxuu leeyay kuwa jecel in xumuhu ku faafo dadka iimaanka leh kuwa jecel xumaha inay faafiyaan adigu faafin maysid laakiin waxaad jeceshahay bulshadu inay waxaasi ku faafaan kuwaas baa ilaahay wuxuu yidhi lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira wallahu yaclamu waantum laa taclamuun bale ilaahay subxaanahu wa tacaala ama nabigiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegayaa niyada sida laynoogu qabanayo ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima laba muslimi hadday seeftooda iskala hor yimaadaan ka la dilay iyo ka wax dilayba naar bay gelayaan markaasaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow garanay kan wax dilaye ka la dilayna xaalkiisu muxuu yahay waxaa la yidhi mid waliba dilka walaalkii buu xaris ku hay yacni casmigaa iyo niyadaasuu qabay sida awgeed mas-uuliyaadku ama qalbigaaga ha ahaato ama jawaarixdaada ha ahaato ama caqligaaga ha ahaato aakhiro waxaasoo dhan waa la isweydiinayaa ha ugu horayso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum baa ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara war dadka iimaanka laga helayow
warnafihiina cadaab ka dhowra baa ilaahay yidhi iyo ehelkiina cadaab ka dhowra oo naftaadaad mas-uul ka tahy nabigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar waa kii ku lahaa yaa cabdallah alam ukhbar annaka tasuumu nahaara wa taquumu lleyl miyaan lay sheegin inaad habeenkiina taagantahay maalintiina soonto sidaa ha yeelin buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam soon oo afur seexo oo toos oo salaad tuko waayo jidhkaagu xaq buu kugu leeyahay ishaaduna xaq bay kugu leedahay reerkaaguna xaq buu kugu leeyahay bale walizawrika calayka xaq kuwa ku soo siyaartay iyo jaarkaaga iyo kuwaasina xaq bay kugu leeyihin taa macnaheed waxa weeyaan mas-uuliyaadka ku saarani way ballaadhantay ka bilaabmaysa naftaada ku dhammaanaysa muslimka oo dhan waxa kaa saaran oo ugu yaraana inaad khayrka la jeclaato haddaad awood kale u weydo inaad u ducayso oo khayrka la jeclaatid mas-uuliyaddaasi waxay kaa saarantahay jaarkaaga intee baynu jaarkeenna ognay inay gaajo ku seexdaan iyo inay waxay cunaan haystaan iyo inay baahan yihiin iyo inay caafimaad qabaan intaynu ognay waalidkeen bay naga saarantahy awlaaddeenna inaga saarantahy madaxdeenna inaga saarantahy sida awgeed mas-uuliyadda qofka muslimka ahi waa mas-uuliyad aada u ballaadhan u baahanna qofka muslimka ahi inuu mas-uuliyaddaasi xambaaro taasi waa tii khalqiga inaga saarayd iyo nafteenna iyo intaynagu dhow mas-uuliyaadkayna saaran waxaa ka mid a diinta inaga saarantay dadka inta badani waxay u haystaan mas-uuliyadda diinta wadaadada iyo madaxda dowladda iyo inahaasi inay saarantay ficlan kuwa waa saarantay laakiin dadka oo dhan bay saarantay ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa horta nebi maxamed inuu yahay nebigii ugu dambeeyey ama rasuulkii ugu dambeeyey ilaahay soo diro waxaana qur-aanka laynoo sheegay lilcaalamiina nadiiran inuu yahay dunida oo dhan inuu diinta gaadhsiiyo waxaanaynu ognahay jaziira alcarabiya inaanu dhaafin oo haddii caalamka oo dhan loo soo diray isla markaana aanu jaziira alcarabiya dhaafin xilku yuu saaran yihi nebi maxamed intuu istaagay buu wuxuu leeyahay alaa hal ballaqt war hooyaay kiina jooga kiina maqan ha gaadhsiiyo ilaahay oo markhaataada iga tay inaan gaadhsiiyey waxaan uga dan leenahay waa mas-uuliyad dadka oo dhan saaran oo markay dadku xilkaa gabeen ayay diintuna dayacantay aakhirana waa lagu weydiinayaa qof kastoo inaga mid ah qur-aanka ilaahay qisas buu inooga warramayaa dad mas-uuliyadda xambaaray oon rusul ahayn iyo qaar rusulaba masalan qur-aanka ilaahay waxaa inooga warramayaa meel 3 rasuul la diiday nin xil isa saaray oo le war rususha ha la raaco mu'minu ali yaasiin waxaa ilaahay qur-aanka inooga warramayaa meel 2 nebi lagu diiday oo bale la rabo in iyaga laga hor yimaado nin ka hor yimi oo isagu keligii u qumay mu'minu ali fircawn waa qisasaa ku taqaanin qur-aanku aada u ballaadhan waxaa ilaahay qur-aanka inooga warramayaa nebi maxbuusa oo iyadoo la xidhay xilkaasi ah inuu diintii weli faafiyo oo xabsi gudihii uu ku faafinayo 3 qisaba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku inoogaga warramaya waxa ay tilmaamaysaa xilka kan siday u qaadeen ama u xambaareen marka waxaan leenahay xil diinta inaga saarantay oo mujtamac oo dhan bay saarantay oo dadka oo dhan baa xilkaa ilaahay aakhiro weydiinaya nin walba calaa qadri cilmi wa istitaacati waxaa laga yaabaa xilkaas
inuu wadaad wacdiyo mararka qaarkood baa kelmaddiisu ka fiican tahay nin suldaana ama nin madaxee eray uu yidhaahdo oo dadku uga hoggaansamay ogyihin mararka qaarkood buu ka fiican tahay macallin iskuul jooga ama principal jooga erayga inuu yidhaahdo inay wadaadka masaajidka kaga habboon tahay mararka qaarkood bay ku fiican tahay qofka waalidka ahi inuu eraygan yidhaahdaa inay looga dhaga nugul yahay cid dabadda ka timi inay warka sheegto waxaan uga dan leeyahay markaa mas-uuliyaddu naftaaday kaa saarantay oo intaad xilkeeda haysay kaa saarantay oo diintaaday kaa saarantay inaad difaacdo oo dadka kala gaadhsiiso waxaynu u baahannahay markaa qof waliba inuu mas-uuliyaddaa qaado mujtamaca aada la nooshahay isna xil baa kaa saaran oo mas-uuliyad bulshadu ay kugu leedahay maadaama culamo badani joogto hadalkayga waan soo koobayaa waxaan ku soo koobayaa maxaynu diyaar lanay inaynu ilaahay is hortaagna wuu ina weydiinayaaye maalinta qiyaame ilaahay dadka joojiyo odhanaya qof walba waxbaa la weydiinayaa ma u diyaar garowday ilaahay waxaad la hortagi lahayd xilka ku saaran intuu doonaba ha leekaadee ilaahay baa ku weydiinayaa waxaa laga yaabaa dadku xilka adduunka inay eegaan ninka macallinka inuu israa xiisaddii ma dhigtay war xiisad maahee dadkan oo dhan aakhira ilaahay ku weydiinaya hortaada fadhiya aada subax walba kusoo kallahayso intaad ilaahay ku xidhay intaad rabbigood bartay intaad diin u sheegtay ilaahu xisaabtaan u dhigi jiray aakhiradee ku badbaadi maysa markaa qof waliba mas-uuliyad buu qaadayaa ee ma dareensannay haddaan dareensannahay oo ku tala jirno ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan jawaab u diyaarsannay fa bihaa wa nicmat waddadii loo baahnaa baynu haynaa haddaad se dareensantahay adiga inaan cidiba wax ku weydiinayno qolo kale inay mas-uul ka tahay cid waliba cid kaloo wax dayacday uu ka warramayo آخر هل إثبات كجرتا يدب حسابته وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.